بسم الله الرحمن الرحيم horta maalmahan waa iska khayraysnaa qof baa inta isoo wacay buu shut down iga dhigay aniga dhan wuxuu igu yiri hebel ma taqaanaa wiigii hore markaasaan intaana u jawaabin wuxuu igu sameeyay ma aqaani milyuun waxay tiri waa la sixir laakiin waxa ogaatay sixirka taleefanka la isku soo raaciyaa hal wiig baan quraan isku waday ilaahay ha iga qabto wixii shara annakii inta islaana maanta waxaa dhacday cumar ninka la yiraahdo Cabdullaahi Faaruq horta waa wiil yar ma sha Allah tabaarak wuxuu ka hadlayaa laba gabdhood oo xamar ka hadashay Cabdullaahi oo xamar hadaa joogi jirtay ama aad maqashay horta dadka Soomaaliyeed waxyaalahan aad la yaaban tahay oo dhan waa ka jireen gabar u tagtay reer miyiga ilaahay sidoo iiga sareeyo gabdho reer miyiga iiga sheekeeyay isku tagi jireen waxaad samaysaa oo aad ogaataa maanta qisada aad ka hadasho tir laba gabdhood baa xamar waxay dhaheen annaga isku qabna waxa weeye caalamka waxa ka jira oo aad aragtay oo jira oo aad idaacadaha ka aragtay oo joornaalada lagu soo qoro inta Soomaaliya waa ka jirtay ma fahanti laakiin waxa weeye waxaas waa taambu wax qarsoon weeye rag iyo naagaba waa jireen waxaa dhacday hadda ka hor annakoo horin ah oo caafimaadka baraan u shaqeynayna bisha cas habeenkii baan guryaha baari jirnay wax furuq la yiraahdaa laga baari jiray waqti hore ahayd waxa laga yaabaa markaas inaada dhalan xaafadda waa beri oo masaajidka muxuu ahaayay masaajidka isbahaysiga dabadiisa buur karoora miyay ahayd may buur karoora ma magac kale leedahay meeshaas waa gadaal waa beri dabka dhinaciisa waxa waaye bari aan guriga soo gargaraacnay markaas qofka muxuu ahaayay madaxda noo ah waxa la dhihi jiray Maymuun Culisow waxa qabi jiray wadaadkii wasaaradda maaliyadda Maxamed Sheekh Ismaan Allah u naxariisto qof cajiib ay ahayd marka waxa dhacday gurigan soo gargaraacnay gurigaas ilaahay hana asturo aakhiriya adduunba nin Soomaaliya oo madaxa iyo nin dadkan la yiraahdo jareerka baa wada jiifay hal sariiro aad u qurux badan oo formiga la dhihi jiray markaas baa u goglanayd ma fahanti guryaha markaa sariiraha hoostooda dadku ku dhuuman jireen waa fiirinay ninka wiilka si fiican buu noo soo dhaweeyay oo guriga iska leh oo xaaska ah ninkaasoo midaan ma aqaan la jiifay cilaan baa gacnaha u marsanaa habeen bay ahayd laakiin waaga soo dhawaa waa la dheelman jiray kulay dad badan baa ka shaqeyn jiray waqtigaas maanta inaan been sheegin gabdhihii waa wada joogan waa wada nool yihiin intii dhimatana Allah u naxariisto waxa dhacday inuu nafariisiyay wiilkii kii kalena uu istuuduubay oo iska dhigay laakiin si fiican baa loo baaro waa la fiirinay qofka korkiisa inuu furq qabiyo in kale ويركالة كفي عب سود وادا هي سود وادا فرفريستا منكيني واي قحوانيني كرنا تمرية هل كان واتالا حلوة وحيار ربتينا إن السينا يا ضد شقة شاعدان كجراتين أصلا ما كلا شعلين مدة هذا كليتو حمر ما قال ده مقدش اللي يراد يا ميل كستبا صوماليا ميل وحنا تشري عد يقول بدينهين رجع أتجا ناجها أتجا ما فهمت وحاس وابوحين ميلو عاننا نجري لكن مقالة مقدشو عاصمة أدبي دادكاس وجوغي وحين أبضنايين نيمانك قريها كشقية أما حافظها أسو أديقة قبلنا واجرين ناق عانا جري حمر بابور كوتي وقبلها يوغين جري رادسان جري مركا ويل يرباتهاي الدنيا دا لما سعوتي وحكستا صومالي دا وي قريسان تنبو واي مركا وحواي وحاس واجرين يعني لغو مشغولين حساب عند الله قف كست إلهي بالله حساب تمايا حيالها ويسترانك كتير عفورها يرير ولا قبسنا هيو واد عرقتين وحاس مركب ميديها بانان قبين حدنا حد ميديها يقول حويه وميديا نقصة وحصوتورة عالمك وحويه مركز في رسد ميديا وحو هايستا كنترول وسارد ورفافينتا وحاس والله كنترول جورنالك وحي لغو قرهيو وحا إذا عدها لغا الشيغهيو waxaasoo dhan waa la xukumaa laakiin annaka waxa weeye waa dibiyo weylo kuma xirna qofku caawu wax arkaya daqiiqada ka bacdi wuxuu rabaa inuu soo daayo wax control ma jiraan laakiin
gabdhahaas hadday waxa waaye wax taystaynayaan iyo hadday runruntahaba waa jiraan waana buux sida adduunku howlahaas uga jiraan baanan waxaas uga jiraan rag la seexda nin naag leh oo waxa weeye dhinaca kalena rag u taga oo caruur dhalay oo aabba way jiraan waxaas waa wax buuxa marka yaan la iska dhigin dad oo muxuu ahaayay 20 milyan baan nahay markii la isku celceliyo Soomaalida waa dad waxa waa iska fiirsan reemi baan u badannahay marka waxa weeye may iyo magaalaba waa ka jiraan waxaas ma aha wax oo baniik lagu noqdo Allah ma ahan waxaas waa buuxaan waana jiraan waana niqiin waana naqaana dad badan baan ognahay mana rabna inaan ka hadalno sababtoo ah ilaahay wuxuu yiri ceebta iyo waxyaalaha fuxushka hal qariyo wax fiicanna maahan wuxuuna waxa fiican inay iska daboolan yihiin cunadu markay urto waa la daadiyaa wad ogtiin laakiin waxaas wax fiican maahan laakiin wixii isa soo bandhiga ayagay u taala xisaab cinda Allah laakiin waxaas waa jireen horena waa u jireen haddana waa jireen hadda laakiin say adiga ku soo gaartay meediyu shalay ma jirin mafaanta idaacada yar baa jiray waxa kastaba control bay lahaayeen wadanku dawlad buu lahaa waxyaalo badan oo aan la ogoleyn baa jiray oo maanta iska noqday muxuu ahayd dibiyo weyl kuma xirna marka waxaas in wax la yaabo maahan halan laga bas wax dhibaatana maahan loo duceeyo wixii hanuun qoran yahay Allah soo hanuuniyo wuxuusan u qornayna wabillahi tawfiiq maxaa loo ugu mashquulayaa qof walba jirkiisa iyo muxuu ahaayay arrimihiisa u khaaska asaga iskale واساس وبالله توفيق وحسن واجرة وحنا وصل قلي إن وشاقو عبد الله فاروق وحليا بيه أو لفتشعي وحير وضمضة قال ذي وحسوا بديه نو كما بدنا أنت عال وضمضة قال ذو قبان بان قبناه لكن وحوي وتنبو وحقر صون بنت وحلا الشاقة معهن قبل هدي لقب صدا واي قريسا ويلك هدي لقب صدا وو قريا gabadhu haday maxay u agtaboon cunug wacala dhasho waa la qariyaa ama carrada dhan bay ka carartaa ma fahanti adduunka marka waxa waaye hadda anaku waa gurguuranayna wadamada qaar waa dhutinayaan fahanti wadana waa ordahayaan marka waxa weeye wadamadii ordahayaan nimid oo xawliga ku socday oo horumarka gaaray marka lama ordi karno waa gurguuranayna sidii diinkii wax kastaba ma waxa dhacay alla ma waxa bismillaahir rahmaanir rahiim waxas miyaa jira marka waa kaas khayr iyo barwaaqo waxaan in leeyahay waxaasna waa wax buuxa wix dadkii reer xamarka ahaa ama maxkamadaha ka shaqeynayay ama booliiska ka shaqeynayay muxuu ama gabdhihii isbitaalada ka shaqeynayay dadkaas wax halala sheekaysto marka wabillahi tawfiiq sidaas aan in leeyahay